marka ugu horeysa waxaan u rajeynayaa guul iyo horumar magaaladan Somaliland wax badan ka mudan. waxaan u mahadnaqayaa intiina ka soo qayb gashay. waxaan idin wada salaamayaa gudoomiyaha xisbiga. waxaan kaloo sidoo kale salaamayaa walaalkay maayarka caasimadda Burco. waxaan ku faraxsanahay inaynu walaalo ku nahay xisbigeena wadani. insha allahu tacaalana markaynu guulaysano dabadeedna aynu walaalo ku sii ahaan doono xisbigeena. reer Somaliland xisbinimadu maaha wax marka kursiga lagu fuulo inta dadkii xisbiga taageerayaasha u ahaa cidlo lagaga dhaqaaqo dabeetana in yaroo koobani ay gasho qasriga madaxtooyada. laakiin waxaynu doonaynaa inaynu xisbiga walaalo ku sii ahaano. in yaroo inaga midunbaa xilil heli doonta, laakiin xisbinimadu inay sii jirto weeye. intaa markaan ka imaado waxaan doonayaa dhowr arrimood oo koobkooban inaan ka hadlo. mid waa mide magaaladan Burco ilaahay iidankii codkeeda ayaa Somaliland badbaadin doona. ilaahay iidankii codkeeda ayaa isbedelka loo baahan yahay keeni doona. codkaaga isbedelka ku imanayana adiga dantaada ku jirta. waad ogtiin walaalayaal, magaaladani waqtiyada qaarkood maraan ka shaqaynayay waxay ahayd magaalo dhaqaalaheedu sareeyo, dad fara badanna ay ku nool yihiin. waad ogtiin muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Burco mar kastoo aan imaado waxaan aada uga naxaa shaqo la-aanta haysata dhalinyarada gobolkan ku nool. gobolkani waa gobol qaniya weeye. maayirka caasimaddan taa hortiina ka leeyahay ma doonayno inaynu dhisno dal hal caasimad leh oo magaalo quraata la isugu yimaado oo magaalooyinka kale oo dhan ay baaba'aan. waxaynu doonaynaa dal leh caasimado fara badan. government seat meesha dowladdu fadhiisataa caasimad kaa dhigi mayso. Ethiopia modelka ay qaadatay waad aragteen horumarka uu keenay iyo quruxdu keenay. waxaa la sameeyaa caasimado fara badan. caasimad waliba sideeday ula tartamaysaa caasimadda weyn ee Addis Ababa. waad aragteen horumarka waddanka Ethiopia ka socda magaalooyinkiisa. waa waddan inala jaara oo dhalinyaradiinani intiina badan aad booqateen. isbedelka ka dhacaya Diridhaba, Harar, Jigjiga inuu waad yaabaysaa. sababtu waxa weeye siyaasadda loo dejiyey baa hagaysa caasimado fara badan in Ethiopia yeelato. innaga waddankeenu sanadihii tagay oo dhan caasimad quraatuu lahaa. in dalku caasimad quraata yeeshana dhibaato weyn baa ku sugan. sixmad baa jiraysa. dadku waxay noqonayaan inay waayaan ama kala waayaan guryo ay degaan, dhul ay degaan. waayo dhaqaaluhu wuxuu cidhiidhi ku noqonayaa dadkii ilaahay markii hore halkaa ku abuuray. laakiin markaynu samaysano magaalooyin fara badan oo qurux badan oo fursado shaqa ay yaalaan, qofka wax ku khasbayaa ma jiro inuu Hargeysa u cararo. balbaluu iskaga noolaan karaa, Burco ku noolaan karaa, Booramo ku noolaan karaa, Saylac buu ku noolaan karaa, Laascaanood buu ku noolaan karaa, Ceergaab buu ku noolaan karaa. dalkana sidaynu ku horumarin karnaa sidaa weeye. xisbigeenna fikirka aynu kaga dhex doodaynaa waxa weeye in la sameeyo magaalooyin fara badan oo caasimado ah oo mid waliba ay caasimo tahay. sanadkii hal mar tartan loo qabto, caasimadda ku guulaysata inay isbedelkii ugu weynaa samaysay la abaalmariyo. magaaladan Burco anigu waxaan ahay gudoomiyaha maayarada Jamhuuriyadda Somaliland. waxaan la kulmay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland. waxaan kala hadlay duruuftii halkan taallay Burco ku arkay. waxaan u sheegay madaxweyne magaalada Burco waxay nooga baahan tahay in la taageero oo la kabo. marag waxa iga maayirkii hore ee caasimadan Burco ayaa marag iga ahaa arrintaa. ballantiina waan sameeyey. madaxweynaha iyo maayirkii horena way kulmeen. wixii ay isiraahdeen maayirka ka warrami doona. laakiin waxaan ogahay anigu in magaalada Burco ay u baahan tahay xukuumad u soo jeeda oo horumar u horseeda. codkiinana inaad dhaafsataan weeye. cidda doonaysa inay idiin horumariso magaaladan ilaahay idinku abuuray ee ku abuurnaanaysaan.
إلى ولي كتجين تصور هذا وحوي يجود هندلك دلك أوردن بين وهم ناس بدل وحين دون ناس بدل إنه كان النبض أو بركة كان النبض وحين دون ناس بدل صافرته محابيسته فرها بدن عيد مدينيها إن مدينيها إنه هو قالقة إن حكومة قشة ولا هذا النص ولا يكسن وقرن كان نود السوعينية إسكو السوعينية دويني السوعينية محابيسته مركا حريد السوعينية وحين دون ناس بدل إنه هو السيدة نرش دتكين السبول كمان تا يكونوا ليهين متكون أكسن وحين دولنا يسبدل إنه كان اعتراف يا قونس ينادوك كم النقطة وحين دولنا يسبدل إنه ولا عليه إنه مدايا وإنه وحوض الله نين تصح وإنه وحبك الله نين تصح ما أنت مشرحين أي نسيدنه هالوين أي أوتالا ذلك هو ذلك إنسان قبيلة تالا دغال حمد تالا إنفليشن قالكم مريو هالوين باوتالا إننا لدونا إنه أنت نجوشا كانوا إنه هذا نعم مدحويننا الله سيشقينه سوق وليستوى سنده هرودمي ويعد كان يعني طلبات الصورة نحوي مقالة برعين دنيا نحصو ولا ليال وحلا ينعذانو ونوجهي دون أكسباتين لكن مروا البوح الوقع على بري يقلبات كبرعو بل يردوا وين يصاف شفت أركتلاس وين برعو ولا تشرته وين برعو ويسكو ظروف دور على أبا كل فقارياش نوع أنا كان برعو وين يوصف رادان سأل مشاكلات كينا يدباتوين كينا أو بقدر ودان أو مركا أو بعد دونتان حلال صورة قلا إلهي إذن كي مركا إنه قوليسنو مدحوينه إنه وحو وقت أهلي دونا إنه دلك أردن مرة مركا وقوه رئيسا وايو هدو مدحوينه عاصمة وفرديو أو آنو قبلنا وقت كسوق عدل دلك وحو نغنيا دل صوغ الرؤية أيو نغنيا مدحوينه كحيانك وحنو كربنا إنه مدارك لدقنادو ومركا مدحوينه سفر يوم العاصمة ديمادو وحين دولنا قلها وسيلدو إني الشقيان هل يهبين السعودان ودد كان أي نصار إما كمركا عدك بادي دوني هودك وادي آبيسا سبحان الله نبتا تالا ظروفتا تالا إلهي أبوكو كينيا رجي أي هيدين السعودان بلو حكومات ودد كان الشقينيا وأنك الشقيسني وحين دولنا إني نسمينو كل حوجن ودلكو كجوي wax kasta ma aha inay koox yar inta ina qabsato gofanayaal ku noqoto qaranka dabeetana inoo sameystaan bare bulsho oo fara badan iyo cayayaan fara badan oo dadka markaasi aaya dhaqaalaha ummadda wax lagu qabanana lagu beeriyo wax lagu siiyo waxaynu doonaa rag awood u leh inay had iyo habeen dalkan u shaqeeyaan xisbigeenu insha Allah taala wuxuu hormood u noqon doonaa isbedelka Soomaaliland ay doonayso isbedelka ay burca doonayso isbedelka ay golayaasha deegaanku rabaan runna waan idin sheegayaa haddaan maayirkeena ay markaa shaqaynaya maanta wuxuu ugu qaabilay waddo qiimo badan oo waddooyinka Hargeysaba ka balaaran oo ka qurux badan waan ku farxay runtii tii kalena waa tan socota dee haddaan xukuumaddu gacan siin ma wadi karayo infrastructure-ku cashuurta yar ee burca ka soo baxda kaabayaasha dhaqaalaha ee magaalada ma hormarin karto wuxuu u baahan yahay xukuumaddu inay dhaqaale ugu tala gasho horumarinta magaalooyinka jamhuuriyadda Somaliland miisaaniyadda qarankana waa in lagu daraawiyo waxaynu ka filaynaa marka aynu guuleysano in magaalooyinku miisaaniyadda qaranka ay ku yeeshaan xogaa qadar lacageed oo miisaaniyadda ugu jira oo loogu tala galay horumarka intaas oo lagu daray cashuurta dadka laga qaado ayaa isbedelka aynu rabno markaa inoo keeni doonto insha Allah taala marka ugu dambaysa aan doonayaan kaga baxay waxa weey caawa dadweyne hadli karnaa laakiin waa door dambe gudoomiyihii maayarkii baa inoo haray marka hadalka wada qaadan maayo waxaan doonayaa doorashadu waxay leedahay xumad yar waxay keenaysaa isdhaliil iyo iscayb keenaysaa laakiin waxaad ogaataan waxaasi maaha wax ina kala kaxaynaya ina kala fogeynaya walaalnimadeena wax yeelaya adduunka oo dhan bay sidaa ka tahay marka hala yaabin adduunka oo dhan ay sidaa ka tahay laakiin 13 bisha November markaynu codka ku ridno ee lagu dhawaaqay natiijada waxaynu u dhaqaaqaynaa dhismaha dalkeena horumarka dalkeena walaalaynta dadkeena
adkeynta nabadgelyada waxaan doonayaa inaan u hambaliyo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Somaliland inuu bareeray oo uu sheegay waxa inaga qaldan sidoo kalena dadkiisa halkay intooda badan mareen uu soo maray waxaan sidoo kale u hambaliyanayaa ogaaska beelaha gobolada Awdal iyo Salal waa ogaaskii Somaliland oo dhan isaguna inuu si wanaagsan inuu la dardaarmay inuu nabadeena ilaashano sidoo kalena uu isaguna taageeray in isbedelka loo codeeyo way iska wada daba imanaysaa dadkuna halkan bay isugu imanayaan laakiin waxa la doonayaa isbedelka markaynu keeno midaan la kala sheeganay oo la wada leeyahay burca iyo magaalooyinka kala dhan horumar horseeda dhalinyarada shaqo oo abuura caruurteena iskuulo qurux badan oo ay u qalmaan inay wax ku bartaan oo horseeda hooyadeen caafimaad siiya oo isbitaal u dhow oo ay u lugayn karto oo ay caafimaad keeni karto siiya xukuumad la dagaalanta musuqmaasuqa oo markii ugu horeysay taariikhda ina tusta in wasiir la xiri karo hadduu xoolaha ummadda ilaalin waayo in maayar la xiri karo hadduu xoolaha ummadda ilaalin waayo ummad wada xisaabtamaysa inaynu isbedelkan inoo keeno wey waxa yar aynu haysano in la ilaaliyo wey oo sida ugu adag loo ilaaliyo wey marka ilaahay idinkii isbedelkani waa inuu noqdaa kii ugu dambeeyay ee aynu ku filaynay isbedelkiina ku yimaado waayo muddada aynu imika dadaalaynay isbedel madaxweyne ee waxaynu doonaynay aynaan helin aad bay u fara badan tahay markan ilaahay idinkii musharaxa aynu sidnaa waa inuu horseedaa aduguna mar walba marka waan xasuusiyaa hawsha sugaysa inuu horseedo dalkani inuu noqdo dal wanaagsan oo horumarsan oo laga dhoofina loo soo dhoofo qaniimooyin badan baynu haysanaa magaalada Berbera layr bay u baahan tahay bilaasha oo jaban markaas nolosha soo galaysa burco xoolaheedan iyo suuqeedan loo hagaajiyo u baahan tahay Hargeysa caasimad meel dawladda ku shaqeyn karayso government sida laga dhigo u baahan tahay baligubada wadu u baahan yahay magaalada Boorama waxay u baahan tahay wadooyinka uga imanay xeebaha in loo keeno si dhaqaalihiisu bedeli ku Itoobiya uga baxaya ceelgaab waxay u baahan tahay xeebteeda in lagu xiro waxaynu u baahanay dad saa u fikiraya inaan noqono dalkeena waa qani waxaynu haysano cidina ma haysato laakiin waxaynu u baahanay cid inoo tashiisha inaga dhaqan inoo dhaqda inaga dhisana inoo dhista inuu baahanay ilaahay ka Cabdiraxmaan hayno ga dhigo dadkeena Allah inoo mideeyo ammaanka inoo ilaalinaya iyagana ilaahay subxaanahu wa tacaala way inoo soo shaqeeyeen waxay ku shaqeynayaan maaha wax maaragtay reer ku noolaan karo mar haddii xisbigeenu 300% u ballan qaaday mushaharkii loo kordhinayo ilaahay idinkii iyagana waxaan ka filaynaa inay ammaanka inoo adkeeyaan sugaan maalin wanaagsan oo mushahar fiican iyo nolol wanaagsan ay heli doonaan guryada loo dhisi doono shaqaalaha qaranka ee la hadidayo ee ka kulmiye ku jirana loo yaqaano mataqaanaa mid shaqadii qaranka haya ka xisbiyada kale ama ururada kale taageerayna loo yaqaano dambiilaha na kuwaana waxaan leenahay laga waantoobo shaqaalaha qaranku intay ka fogaan karayaan siyaasadda ka fogaadaan xaqooda iyo xuquuqdooda ay helayaan wax ku khasbaya ma jiro inay maaragtay ku khasbanaadaan kulmiye markay galaan meesha codka lagu bixinayo xaq buu qof walba u leeyahay meesha uu damoodayo inuu codkiisa siiyo shaqaale qaran baatiin xuquuq baan leedihiin hadidaad iyo maaragtay cagajuglayn haddii xukuumaddu idinku hayso waa sharci darre weeye inaad ka baqataana maaha codkiina idinkaas kale xor baa tihiin xuquuq shuruuc baana jirta inay ilaalinaysa insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu ha guuleeyo innaga allah ina guuleeyo musharaxiina allah ha guuleeyo insha allah